السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada casharadeenii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Python ee aad kala socoteen channelka CR Warsame. Casharkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa hadduu alla yiraahdo loops gaar ahaan while loop. Waxaa mararka qaar dhacayso inaad u baahatid inaad code aad qortay aad ku celcelisid muddo ama dhowr mar. Waxa aan arki doonaa sidii aan shaqadaas oo kale aan u xalin lahayn ama u qaban lahayn. Tusaale haddii aan ku dhaho waxaa soo daabacdaa Soomaaliya, waxaan dhihi lahayn sidan oo kale printy Soomaaliya. Haddii aan ku dhaho laba mar soo daabac Soomaaliya, waxaad samayn lahayd sidii u badan tahay inaad koobiyeyso oo aad dhahdo mar kale Soomaaliya ayaan rabaa inaan soo daabaco. Ka hor haddii lagu dhaho waxaa soo daabacdaa 5 mar ama 10 mar ama ka sii badan. Dabcan macno badan ma samaynayso in lagu dhaho Soomaaliya soo daabac soo celceli, laakiin marar badan waxaa dhacayso baahi noocaas oo kale ah in aad code u baahatid inaad ku celceliso. Marka meeshii aan koobiyin lahaa aan ku celcelin lahaa, waxaan heli karnaa inaan sidaas ka duwan aan u xalin karno. Tusaale haddii aan dhihi lahaa waan koobiyeynayaa 10 mar, waxaa ka imaanaysa faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in dabcan waqti uu kaa qaadanayo ku celcelintaas, in programkaagii uu dheeraanayo, in hadhow haddii aan bedelo wixii aan samaynayay inay noqonayaan meelo badan inaan bedelo. Tusaale Soomaaliya soo qor ayaan ku dhahay 10 mar ayaa soo qortay. Haddii aan ku dhaho Soomaaliya ha noolaato u bedel, waxay noqonaysaa 10 meel inaad bedeshid. Taas waxay keeni kartaa marka programkaagii inuu waqti badan ka qaato. Haddii qalad uu dhaco ku celcelintiisa iyo sixidiisa in ay iyadana sidoo kale adkaato. Waxaan maanta baran doonaa hadduu alla yiraahdo sida aan inaga oonan koobiyeynin aan ugu celcelin karno code aan hal mar qornay oo aan dhihi karno intaas soo mar ku celceli. Ma fiicnaan lahayn haddii code-kan oo kale aan dhihi karo halka inta imaado repeat 10 times tusaale ahaan oo ka bacdina code-ka soo socdo 10 mar aan ku celcelin karno way fiicnaan lahayd aan isleeyahay. Waxaan arki doonaa dabcan repeat 10 times ma jirto, laakiin wax u eg sidaas oo kale in aan samayn karno oo noo suurta gelinayo code-keeni inaan dhihi karno 10 mar ku celi, 20 mar ku celi iyo sidii aan rabno. Loops waxaa la dhahaa marka waa repetition structure. Repetition-ku waa ku celcelintaas. Waxaa uu leeyahay dhowr nooc, for loop iyo while loop wax la ayaan isticmaalnaa Python. Waxaan arki doonaa casharkeena maanta hadduu alla yiraahdo while loops iyo sida loo isticmaalo. While loop syntax-keedu waa sidan: while condition statements. While condition laba dhibic wixii statements-kii aad rabtay in lagu celceliyo. Condition-ka hore aan soo aragnay waxaa syntax u dhow aan ku soo aragnay if markaa isticmaalaynay if condition iyo statements-kii. Sidaas oo kale ayaan halkaana isticmaali doonaa. Si kooban while markaa isticmaalayno 3 shay ayaan raadinaa badanaa. Haddii aan dhahno syntax-ka anagoo raacayno sidaan oo kale ayaan rabi lahaa. While waxaa kasoo qaadaa waxaan ka hormarinayaa variable aan abuuranayaa oo aan rabo inuu wax ii tiriyo. Waxaan rabaa marka wixii aan rabay in lagu celceliyo wax ii tiriyo inaan helo marka koobaad. Markii aan dhihi karo 1 hal mar la daabacay, 2 markaa la daabacay, 3 mid kale la daabacay, 4 ayaa la daabacay iyo wixii la midka. Haddii aan marka aan variable noocaas aan abuurto, variable-kii magacaada u bixin kartaa. Waxaan leeyahay tusaale ahaan counter is equal to 1, variable ila counter hal igu shub tiriye way waxba ii tirin doonaa. Waxaan leeyahay halkan while inta counter uu ka yar yahay ama la eg yahay 10 tusaale ahaan inta 10 uu ka gaarayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oo kale. Aan number gaabiya si aan arki karno 5 aan dhaho tusaale ahaan inta 5 uu ka gaarayo waxaan leeyahay waxaa soo daabacdaa printy Soomaaliya soo daabac. Now syntax-ka guud sidaan uu ahaa inaan helo variable wax ii tirinayo iyo inaan condition-kii abuuro while condition ka bacdina aan dhahno waxaa samaysaa sidan. Haddii meeshan ku bedelo while boss-keeda si aan u fududeeyo if haddii aan ku bedeli lahaa waxaan dhahay halkan counter hal igu shub. Haddii counter-ku uu ka yar yahay ama la eg yahay 5 Soomaaliya soo daabac. Haddii aan run dhaho programkan waxa uu samayn lahaa inuu Soomaaliya uu soo daabaco sida aan rajaynayno. Ku muuqanayso programkeeni Soomaaliya ayuu soo daabacay. Sababta uu soo daabacana waa maxay? Waxaan dhahnay waxaa fiirisaa haddii variable-ka counter waxa ku jiro oo ahaa hal ay ka yar yihiin ama la eg yihiin 5, hal ma ka yar yahay ama la eg yahay 5 ha shaqadan qabo. Booska if haddii aan ku bedelno while macnahan English wuxuu noqonayaa inta ilaa counter uu ka yar yahay ama la eg yahay 5 shaqadan qabo. Markii hore wuxuu ahaa counter hadduu ka yar yahay 5 hadduu ka yar yahay shaqadan qabo waan la sii soconayay.
haddaa fiiriso haddii aan halkan dhihi lahaa the end soo daabac haddii aan dhihi lahaa waxaa soo daabacdaa the end ama programkii wuu dhamaaday if haddii halkan uu ahaan lahaa wuxuu dhihi lahaa the end ayuu idhihi lahaa dabcan marka uu soo daabaco Soomaaliya the end haddii aan ku bedelo halkan laakiin while haddii aan ku bedelno while waa maxaan dhahnay inta counter uu ka yar yahay 5 waxaa soo daabacdaa Soomaaliya inta aan ran dhihin aan wax yar sharaxo wuxuu tijaabin doonaa counter dabcan condition ku fiirin doonaa counter ma ka yar yahay ama leeyahay 5 ha shaqadan qabo marka if waxay ahayd way sii gudbaysay oo saarka xiga ay gudbaysay kan laakiin wuxuu uga duwan yahay uu soo laabanaya haddana mar kale because while waa ilaa inta uu counter uu ka yar yahay 5 counter waxa la rabaa marka 5 inuu la ekaado ama uu ka badnaado si looga joojiyo inuu ka badnaado ayaa lagu joojin karaa inta uu ka yar yahay ama la eg yahay waxa la tijaabin doonaa mar walba counter ma ka yar yahay 5 ama la eg yahay ha Soomaali daabac ma ka yar yahay ama la eg yahay ha Soomaali daabac inta uu marka ha ay tahay jawaabtu sidaas ayaa lagu celcelin doonaa marka ay noqoto false ayaa la joojin doonaa if waxay ahayd marka ay true noqoto shaqadan fully ka bacdina ka soco while waa maxay shaqadan inta ay true tahay shaqadan qabo condition inta ay true tahay shaqadan ku celceli true miya ha shaqadan qabo true miya shaqadan qabo true miya shaqadan qabo true miya maya markii la dhaho ay ka bixi lahayd haddii aan programkan ran dhaho waxaan rabaa inaan ku tuso waxa dhacayo ran ayaan leeyahay haddii aad fiiriso Soomaaliya ayuu daabacayaa maxaa dhacay because wuxuu sameynayaa counterkii ma ka yar yahay ama la eg yahay 5 ha Soomaaliya daabac hal ma ka yar yahay ama la eg yahay 5 ha Soomaaliya daabac hal ma ka yar yahay ama la eg yahay ha maanta oran maadaama ha jawaabtu ay tahay way doonaa haddii saan oo kale ku dhacdo waxaa la dhahaa infinite loop fiican maaha marka wax fiican maahan haddii aan halkan joojiyo stop ayaan leeyahay infinite loop waa error marka errorkaas muxuu yahay waa error ku qabsanayo haddii loopkaagii ama wixii lagu celcelinayay qaab loo joojiyo aan lahayn maxaan rabnaa marka conditionka waxaan rabnaa inay true ahaato true laakiin in la gaaro mar ay noqonayso false mar ay noqonayso while loop marka isticmaalaysid infinite loop inuu ku qabsado ayaa aad suurtagal u ah loop aanan dhamaanaynin marka ma fiicno waa error aad u xun waxa uga hortagi kartaa waxaan horey kaaga tusayay inta aan waxba samaynin si aad uga taxadarto while loop marka isticmaalayna badanaa 3 shay ayaan ka raadinaa waxaan raadinaa inaan variable aan halkan abuurno la yiraahdo counter ama variable-kii wax noo tirinayay waxaan rabnaa markii variable-kaas waxaan ku sameeynaa marka koobaad wax la initialization variable-kaas ayaan wax ku bilownaa marka hore step-ka labaad waxaan sameynaa inaan variable-kii aan ku tijaabino condition-kii halkan waxay noqonaysaa condition-kii inaan tijaabino run miyaa mise waa been haddii ay true tahana waa la fulin doonaa loop-kii haddii ay false tahana lama fulinayo tan saddexaad waxaa la rabaa loopka dhexdiisa while loop markii la joogo in laga helo variable-keenii counterkii wax noo tirinayay variable-keenii wax ka bedela xaaladiisa because hal ayaa ku jiro hal 5 ma ka yar yahay ama la eg yahay ha waay weligeed hal waa ka yar yahay ama la eg yahay 5 marka waxaan rabnaa in la helo 5 in la gaaro si loo helo waxaan leeyahay variable-keygii counter waxaa iigu shubtaa counter wixii horey ugu jiray oo lagu daray hal marka counterkii waxaan ku sameynaa wax la increment hal iigu dar ayaan leenahay halkan ayaa waxaan ku magacaabnaa wax la update statementii wax update gareynaysa marka variable-kan waxaa marka lagu magacaabaa loop control variable ayaa marka qaarna loop control variable-kii loopkaaga xukumaya waa variable-ka marka waxaan sameynaa inaan wax ku shubno marka hore initialization saddexdaa shay la fiirsaa loopka laga fiiriyaa while loop loopkaagii variable-kii xukumi lahaa inaa marka hore initialize garayso hal ku shub laba ku shub eber ku shub 10 ku shub waxa rabto aday kugu xiran tahay labo inaa conditionka ku jeegarayso loopkaagii xaaladiisa iyo 3 boodiga while loop inaa wax uga dhex bedesho hadda marka muxuu sameyn doonaa counter waxaa ku shubtaa hal ma ka yar yahay ama la eg yahay 5 ha Soomaaliya soo daabac hal mar soo daabacay counterkii wixii ku jiray hal ku dar hal ku jiray laba uu noqonayaa kabacdi inuu halkan yimaado halkan uu imaanayaa laba markuu noqdo laba ma ka yartaa ama la eg tahay 5 ha Soomaaliya daabac laba mar uu daabacay hal iigu dar 3 uu noqday 3 ma ka yartaa ama la eg tahay 5 ha Soomaaliya daabac hal ayuu ku daraa 4 ayuu noqday Soomaaliya counter ma ka yartaa ama la eg tahay 4 ma ka yartaa ama la eg tahay 5 ha Soomaaliya daabac hal iigu dar 5 ayuu noqday 5 ma ka yartaa ama la eg tahay 5 ha Soomaaliya daabac hal iigu dar 6 ayuu noqday 6 ma ka yartaa ama la eg tahay 5 maya halkaas ayuu loopkii ku joojin doonaa haddii aan ran dhahno programkan wuxuu ku tusayaa inuu Soomaaliya soo daabacay 5 times 1 2 3 4 5
kabacdina uu dhahay the end marka the end hadaa fiirsa hal mar soo daabacay sababtu waa maxay iyada loop kuma dhex jirto tan ayaa loopkii ku dhex jirto marka si kooban while loop waxay samaysaa in aad shaqo dhihi karto iigu celceli inta waxaas laga helayo saddex shay ayaan ka fiirinaan dhahnay kow initialization variable-kan aan ku sheegay loop control variable-ka inaan wax ku shubo hal ayaan ku shubay halkan condition-ka isagii ayaan ku jeegaraynayaa kabacdina waxaan soo daabacaya wixii aan qabanaya ayaa halkan dhigayaa waxa aan qabanaya waxaa ka mid ah statementii wax ka bedelayso variable-kii marka saddexdan shayba variable-kii ay la tacaamulayaan sida halkan kaaga muuqanayso variable-kii wax ku shub oo wax ku bilow condition-kii ku jeegaraya variable-kii kabacdina variable-kii xaaladiisa wax ka bedel waxaan aragnay inay imaanayso wax la infinite loop haddii variable-ka aana waxba laga bedelin because variable-kii mar walba true ayuu ahaan doonaa waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo intaan cashar ka bixin waxaan rabaa inaan ku tuso waxa aan leeyahay waxay u dhacayaan sadar halkan ayaa hal lagu shubi doonaa counterka la jeegarayn doonaa intaa la imaan doonaa hala lagu dari doonaa waa la soo laaban doonaa shaqadaas aan ka sheekaynaya ayaan waxaan rabaa inaad ila aragto sida ay u dhacayso waxaan samaynayaa marka while loop while horteeda ayaan but mouse ku aadinayaa kabacdina click ayaan siinayaa markay ku soo fuusho calaamadan yar goobadan yar ee guudan waa break point yaa la dhahaa waxaan abuuray programku markuu soo socdo meeshaas inuu istaago wixii ka dambeeyo aniga ayaa raba inaan la wareego sida ay wax u fulayaan execution-ka oo waxaan rabaa sar inaan u arko sida ay wax u dhacayaan meeshii aan ku dhufan jirnay buttonka play ama run ay ku qoran tahay waxaan ku dhufanayaa buttonkan ku xigo debug ay ku qoran tahay debug markii aan ku dhufto wuxuu samayn doonaa inuu markuu halkan soo gaaro code-kii uu joojiyo buluuga calaamada sarka saaran wuxuu ku tusayaa halkan ayuu marayaa aniga ayaa marka la wareegayo execution-kii halkan waxaan dooranayaa console ayaan ku dhufanayaa si aan u arko waxa dhacay iyo sida ay u dhacayaan waxaan samaynayaa marka waxaan kor qaadayaa buttonkan ay ku qoran tahay step over ayaan dooranayaa dabcan kuwa kale waad tijaabin kartaa step over ayaan ku dhufanayaa oo ah sadar iyo tusbal horta sida wax u dhacayaan ee aan ka sheekaynayo sadarka xigo marka variable-skin waa ku aadin kartaa halkan wuxuu ku tusayaa variable-ka counter hal ayaa ku jiro ayuu ku leeyahay waxa uu ku tusayaa haddii aad ku aadiso counter hal ayaa ku jiro ayuu ku leeyahay one ma keenaya ama leegaya shan dabcan jawaabtu maxay noqonaysaa ha ayay noqonaysaa haddii aan dhaho step over sadarka ku xigo fuliyu ku leeyahay Soomaaliya soo daabac ayaa ku xigi doona fuli haddii aan dhahdana hoos wuxuu ku tusayaa inuu Soomaaliya soo daabacay hal mar haddii aan sii wado step over dhaho mar kale wuxuu ku tusayaa inuu soo laabanayo while loop uu soo laabanayo isagoo variable-kii hal ku diray counter muxuu ku tusayaa halkan inuu laba yahay ayuu ku tusayaa Soomaa haddii aan dhaho mar kale step over wuu sii soconayaa Soomaaliya mar kale soo daabacayaa counterkii hal ku dar markii aan dhaho saddex ayuu ka dhigayaa condition-ku jeeganaya saddex makiyarta ama leegtaa shan ha Soomaaliya soo daabac haddii aan fiiriso hoos console-ka haddii aan fiiriyo Soomaaliya laba mar uu soo daabacay haddii aan okay dhaho mid saddexaad ayuu ku daray sida ku muuqanayso haddii aan dhaho step over mar kale afar uu noqonayaa counterkii afar way ka yartahay shan weli waa sax Soomaaliya soo daabacaya mar kale haddii aan dhaho haddana hal ku dar shan ayuu noqonayaa shan makiyarta ama leegtaa shan ha Soomaaliya soo daabac lix ka dhig lix makiyarta ama leegtaa shan maya ay noqonaysaa haddii aan dhaho step over markan wuu soo boodayaa the end ayuu imaanayaa haddii aad fiiriso Soomaaliya shan mar ayuu soo daabacay haddii aan dhaho step over mar kale the end ayuu soo daabacayaa sidaas ayuu u samaynayaa marka debugging-ku wuxuu aad kaaga saacidayaa inaad arki karto programkaagii iyo sida ay wax u dhacayaan step by step sida wax u fulayaan mar walbana output-kii aad la socon karto variables-kaagii si isu bedelayaanna aad arki karto tusaalooyin kaloo badan ayaan ka bixin doonaa haddii waa la yidhaha while loop casharada noo socdo waa ku mahadsantihiin waqtigiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh